weli ma maqashay 123 jir bikrad ah oo weli raadinaysa lamaanaheedii ay nolosha ay la wadaagi lahayd. Teresa Nyarakajumba waa haweeney u dhalatay dalka Rwanda oo ay da'deedu ay tahay 123 sano. waa haweeneyda ugu da'weyn adduunka oo dhan kana sii da'weyn Maria Branyas Morera oo American Spanish ah kuna dhalatay San Francisco bishii March sanadkii 1907 isla markaana da'deedu ay tahay 117 sano. waa mushkilad adduunyadu sida mawjad rogantay muddo dheer ninkii nool ma shaqo iyo la yaab arag kaliya Teresa ma aha in ay tahay gabadha ugu da'da weyn adduunka ee waxa ay haysataa rikoodhka ah in ay weli ay bikra tahay isla markaana ay baadi goob ay ugu jirto ninkii guursan lahaa ee ay nolosha ay la wadaagi lahayd. anigu waxa aan dhashay sanadkii 1901 sida kaarkayga aad ku aragtaan beriga dhaqanku aad ayuu u adkaa gaar ahaanna bulshada reer Rwanda. dumarka looma ogolayn inay ragga dhaxgalaan sida daraadeed muddo dheer ayaan ku dhex jiray dumar kaliya mana arki jirin wax rag ah waan iska ururin jiray oo wax xun baa la iiga sheegi jiray waan arki jiray laakiin kuma dhici jirin in aan nin la haasaawo ma qabin wax baahi ah ama dareen ah oo ragga xaggooda igu riixaya. kolkii dambe guri ayaan keligay iska degay dumar baana igu soo booqan jiray inkasta oo waqtigii uu isbedelay haddana anigu weli waxaan ku taagnahay dhaqankii hore sidaa daraadeed weli waxaan ahay bikrad keli nool ah oo aan nin lahayn. in rag la isla ciyaaro guurka ka hor deegaanka mamnuuc bay ka ahayd. tuulada guriga iigu yaalla keligay ayaa adeegta marmar dumar baa i caawiya hadda ayaan ka fakarayaa ninkii i guursan lahaa laakiin weli ma hayo. kolkii aan gaaray ayaan bilaabay xaaladda guurdoonka ah oo hadda waxaan ahay guur umeer goobaysa nin jeclaada oo guursada laakiin weli ma hayo malaha ma jiro nin aan soo jeedan karo aniga oo cimrigaasa. hase ahaatee kama quusan oo calafkayga yaan sugayaa sidaa waxaa tiri Teresa Nyarakajumba oo saxaafadda u waramaysa. islaantan mayee aan dhahnay inantan waa mid aad u hanweyn guumaysna kuma sheegi karo maxaa yeelay weli calafkeedii iyo nin u qalma ayay baadi goobaysaa. haddii aad doob tahay fursad ayaa halkaasi kaaga bannaan oo waxaa macquul ah in aad noqoto ninkii ay ku taamaysay. hadda meesha ay joogtana nagama fogo oo waa Afrika un. waxaa kale oo halkaasi aad ka helaysaa fursad caannimo oo toddobaadyo adduunka oo dhan lagaaga sheekaysto maadaama aad guursanayso haweeneyda ugu da'da weyn ee maanta nool. Teresa waxa ay sheegtay in yaraanteedii gabdhaha ka waaweyn ay ragga ay uga digi jireen ha yeelin shukaansiga beenta ah ee ragga waxay doonayaan in ay ku khiyaamaan dantooda kaa gaaraan kadibna cidla kaaga dhaqaaqaan. sidaa waxaa igu waanisay mid ka mid ah saaxiibadaydii hore ee dhowaan geeriyootay malaha 50 sano ka hor ayay dhimatay. ha igu qoslina aniga 50 sano ka hor shalay baan u aqaan aniga shalay ayay ii ahayd maxaa wacay 120 jir baan ahay. waxa ay ku dhimatay 70 jir oo caruur bay ahayd marka aniga la ii eego. waanadeeda waan qaatay oo waan ku dhaqmi jiray muddo dheer oo 100 sano ka badan laakiin hadda waxaan ogaaday in ay qalad ay ahayd in aan ragga oo dhan aan si xun aan u arko oo aan difaacan ka galo. nin kasta ma xuma oo waxaa jira qaar wanaagsan kuwii aan dayriyey mar hore ayay dhinteen laakiin kuwa cusub baan isleeyahay bal mid aad ka heshid si aad weysada isugu dhowrataan. weliba ku darso cuntada waan karin karaa nooc kasta aniga ayaa u soo adeegi lahaa haddii uu iskeeni lahaa ninkii aan rabay. malihii wax shaqaale ah oo wax kasta aniga ayaa qabsan karaa. gabdhaha yaryari maxay tarayaan xooggii waan leeyahay khibraddiina waa aniga xambaarsan 123 sano oo khibrad ah. waa tee gabadha leh oo Afrika ku nool adduunyada kalena haba sheegin. sidaasi waxaa tiri Teresa Nyarakajumba oo ah haweeneyda ugu da'da weyn adduunka kaaga sii darane haddana bikrad ah. waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee mar walba aad noola socotaan. Bulqaas Media ayaad nagala socotaan. fadlan haddii aad ku cusub tahay page-ka Bulqaas Media ha ilaawin inaad like iyo follow aadna soo tiraahdo. haddiise aad tahay macmiil soo noqday sidoo kale ha ilaawin in muuqaalkan aad sheer garayso oo asxaab badan aad la wadaagto si iyaguna asxaabtooda kale ay ula wadaagaan halkaasina ay wax uga bartaan. wixii tale iyo tusaale ah waxaad noogu soo qori kartaan dhinaca commentiska. aad ayaad u mahadsantihiin. rabbiga ha idinla jiro. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.